galab walba inta lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan la yaab ma lahan in suuqyada lagu iibiyo timirta ay kamid noqdaan kuwa joogtada looga adeegto. tan $1 waa maam $1 ma $1 la gadaa kiilo waa tan. Cabdicasiis Cali oo maalintii labaad oo xiriir ah u yimid inuu iibsado timirta ayaana kamid ah. shalay waa ka iibsaday maantana waa ka iibsanayaa maalintiiba kiilaan qaata shalay baad kiilaan qaatay maantana saa u jeedo kiilaan qaadanaya xaafadan u geeyaa xaafada lagu afura familka ku afura ilmaha ciyaalka iyo maamooyinka ku afura. timirta waxaa alaaba la arkaa inay fursad dhaqaale ay bishan u noqoto dad badan oo bilaha kale ku shaqeysta xirfado kale. Cabdulqaadir Maxamed Maxamuud oo ku magac dheer Miskiino oo ah sarifle ayaana kamid ah kuwaas. isagoo ku guda jira shaqadiisa ayaanu kula kulanay meheradiisa. wuxuu sheegay in noocyada timirta la cunaa aysan isku dhadhan iyo qiimo ahayn, qof walbana uu heli karo mid ku haboon caafimaadka jirkiisa. hadda Ramadaanka hore ma arki jirin, hadda socotaa waa 2 kiilo oo isku xiran. iyadana waxaan gadnaa $2 iyo bar. tanna waxaan gadnaa $1 dadka sokorta qaba aan ugu talagalnay waa timir oo qaleel ah. iyadana waana nus kiilada waana timirta hadda ugu qaalisan magaalada. okay tan furfur waa $1 iyo bar aan gadnaa. iyadana tan furfur kala waaye $1 iyo $2 aan gadnaa kiilada. oo waxaa jiro dad iska danyaraa jiro, tan 5,000 waa la cabiraa, 4,000 waa la cabiraa, 6,000 waa la cabiraa. hadba lacag qofta waxay haysato waa loo cabiri karaa, laakiin qaybi oo waxaa jirto oo la cabiri karin oo qofka $1 oo u yartahay hal iyo barna ay u yartahay. timirta waxaa dhacday in dad badan ay kaliya cunideeda ku baraarugaan bisha Soonqaad, hase yeeshee in kale sida Cabdicasiis waxay kamid tahay noloshiisa maalinlaha ah u eegis la'aan bil soon iyo bil kale. mar walba isticmaalnaa soo ahaan uu isticmaal markasta waan isticmaalnaa soon ahaata ama ahaan guriga waa dhiganaa xilli bisha oo la gaaro kala waan dhiganaa gurigaan geesanaa waa la iska isticmaalaa subaxdii oo kale qaxwada lagu cabaa galabtiin casriya laga dhigtaa saas aan u isticmaalnaa soonkana si aad aan u isticmaalnaa marmar xataa habeenkii oo kale dacaan booraha la iskaga shiitaa cabitaan aan ka dhiganaa waa ku afurnaa waa iskaga baashaanaa ilmaha carruurtan waa la siiyaa. waana arrin ay bogaadinayaan bahda caafimaadka oo ku taliya inaan loo daymo la'aanin cunisteeda marka loo eego Dr. Maxamed Cabdullaahi Gaaladiid. waxa la alqidaa almutakaamil ee dhahan timirta cunto oo dhameystiran waay, haddii noqon lahayd energy, haddii noqon lahayd protein, haddii noqon lahayd vitamin, wax walba kulli waa u dhameystiran. marka kaligeed waa qofka taa uu ku noolaan karaa waqti fatra ah. marka waana muhiim qofka markuu timirta uu qaato energy badan oo qofka ka hela. mana ahan bahda caafimaadka oo qura kuwa sharixi kara faa'iidooyinka caafimaad ee timirta. xitaa culimadu waxay ku ayidi karaan adilooyin muuqda oo laga wariyay suubanaheena nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee. waxaana nooga waramaya Sheekh Cumar Sanwaaqle. marka nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu umada faray ama ku booriyayba in timirtaasi markay sooman yihiin gaar ahaan bisha Ramadaan inay ku afuraan. waxa ugu horeeya ee ku afuraan ay noqoto timirtaasi. waliba timirta ida fadhi badan waliba timiro waxaa jirto qaali ah nabiga sallallahu alayhi wasallam uu amaanay haduu heli karo qofka timirtaas inuu ku afuro, hadii kale miduu heli karo ku afuro. waliba tirada isdheer ayaa aad u fiican. sicirka sanadkan ku dhacay micishada qutul daruuriga ah meelaha aanu sida muuqato u saameynin waxaa kamid ah qiimaha timirta oo halkii ay sanadkii hore kiiladii ka ahayd $1 maanta lagu iibsanayo $1 iyo bar.